waxaa kaloo bini aadamku uu leeyaho dabcigiisa kamida kelima noolaan karo, keli iskuma fillaan karo. waa laabud min tajamuc, waa in urur jiraa uun dadku si ay isugu tiirsadaan waa inuu jiraa. waxay yidhahdaan baahiyaa qofka bini aadamkaa waxaa kamid ah alintimaa bay yidhahdaan, inuu cid ku tiirsanaado. waa dhici kartaa waxaad ku tiirsantay inuu ummad yahay, waa dhici kartaa inuu dowlad yar oo nationa yahay, waa dhici kartaa qabiil inuu yahay, waa dhici kartaa urur yar inuu yahay, wuxuu doona ha noqdo. dabeecada ilaahay inuu abuuray baa waxay tahay inaynan kelis ku fillaan karin. yani waxaa laga yaabaa maryahaad xidhantay maanta haddaad eegto midna dunida dabadeeda laga keenay, midna horteeda laga keenay. waxaad soo cuntay haddii la eego midna china lagu beeray, midna africa lagu beeray. yani qofka noloshiisa caynkaasiya, qofku keligii iskuma fillaado. waa laabud min tajamuc bay idhaahdeen. saa daraaddeed ba culamaa ijtimac waxay dhaha alisaanu bitabci ijtimaaciy, qofka bini aadamka ahi dabeec ahaan buu yahay bulshaawi, bulsho kama maarmo. waxaa laakiin mushkiladdu ay taagantahay markaasi, mushkilad bulshada maxaa isku xidha inta badan. waxay dhahdaan laba wax waxa weeyaan bay dhahdaan qiyam iyo value. waa wuxuu qofku qiimeynayo, diin ha noqoto, dhaqan ha noqoto, culture ha noqoto, waxay doonaysaa ha noqoto. waxna waxay dhahdaan waa masaalix mushtaraka, dan ka dhaxaysa, dhul ha noqoto, hanti ha noqoto, waxay doonaysaa ha noqoto. saa daraaddeed bini aadamku markuu wax isku darsanayo, sifo kasta uu isugu darsaday waa laabud. waxaa jira bay yidhaahdaan oo la socda ma muran waayo insaanku, waayo siduu wax u arkaabaa kala gedisan. kala gedisnaanta bini aadamku waxay gaadhsiisantahay bay yidhaahdaan, waxna bini aadamku wuu wadaagaa aadanahoo dhami, waxna aadanahoo dhami qof waliba gaar buu ku yahay. matalan wax waynu wadaagnaa, bini aadam oo dhame laba indhood buu halkan ku leeyahay, san buu leeyahay, af buu leeyahay, gacan buu leeyahay, adin buu leeyahay. qaabka aynu u dhisana bini aadam oo dhame u dhisan yihin. haddana waa kala nooc oo basmadaada suulka haddaad saartaa caalam baad keligaa tahay. bini aadamka kaloo dhan la nooc mati. ishaada haddii la sawiro caalam gaarkiisa abaati keligaa baad. sida waxaa lamida bay leeyihin garaadka bini aadamka iyo aqoontiisa. waxna waa wax guud oo bini aadamku wadaago, waxna qof waliba su wax u jajgaraya ama wuxuu arko ama wuxuu qiimeynaya waa ku kala gedisanay. mana kala maarano, waa inaynu wada noolaana, waana kala gedisanay. mal xal bay yidhaahdaan marka. inaguna ka soomaali ahaan dadka kama mushkilad badnin, kama xikmad yarin, kama xumin. haddana waddankeennii wuxuu baaba'san yahay muddo aada u dheer, oo cid waliba cid kasii guurtay mushkiladda. waxay dhahaan bini aadamku wuxuu ku kala gedisan yahay jiritaankiisu inta badan. waxyaaba ugu muhiimsan waxaa kamida bay yidhaahdaan marka uu kala gedisnaantiisu timaado sida uu u xallilo. waxbaynu wada lahayn shirkad lacageed, masaajid, urur, xisbi, qabiil, dal, waxaa doonta dhe. waxbaynu wada lahayn. waxaynu wada lahayn waxaa dhici karta wuxuu ku habboon yahay inaynu ku kala gedisnaano. sida wax loo wadayo inaynu kala aragti ahaano. mal xal. dadka badh xalka waxay u arkaan, waxay idhahdaan xukmu lgaabi wannaab bay qaataan. xukunka kaynta bahaalada ku nool xeerka u yaalla waxa weeyaan kii xoog weyna usoo hadhow. xeer kale uma yaallo. xeerka kaynta haddaad marto waxa weeyaan waa ninkii la muquuniyo. ninkii wax muquuniyaana soomaalidu waxay idhaahdaa markay xeerkaa ka warramayaan, habar dugaag ayaa hilib qaybsaday bay yidhaahdeen.
habar dugaag waa hilib qaybsaday dabeetana waraabaa la yidhi qaybi waraabaa wuxuu yihi hilibka ma badh mise badh libaax baa leh badhka kalena habar dugaag baa le buu yidhi libaax keligii badh buu siiyey inta soo hadhoo dhanna habar dugaag baa leh waxay soomaalidu yidhaahdaan libaaxii dhir baaxuu qaado il buu kasoo riday waraabihii yani cadaalad maaha buu leeya waxaad qaybinaysaa dayaa loo dhiibay bay soomaalidu tidhaahdaa yani dawaco ayaa la yidhi hilibka qaybi dawaco waxay tidhi hilibka ma badh mise badh libaax baa leh badhka kale ma badh mise badh libaax baa leh badhka soo hadhay ma badh mise badh libaax baa leh say u wadee u lahayd badh mise badh ayay wixiiba libaax siisay libaax wuxuu yidhi ba idhaaheen dayo cadaalad ayaa ku baray isha cumar ka lahadlaaday tiri baa layi irbaaxadaa ku dhacday ayaa i bartay idan waxay dhahdaan waa xukun bini aadamku uu yaqaano oo ah ninkii xoog badana u hadhay taasi waa mid xukun kalea jira bay yidhaahdaan oo kaa ka gedisan oo ah ina yareeya waa ra'yiga odhanaya ina kala rara weyn mushkiladiisa waxay kuma inoo qaybi xoolaha xisbiga inoo qaybi masaajidka inoo qaybi dalka inoo qaybi ina kala saar ina kala gura isna waxay yidhaahdaan waa xal ku salaysan mushkiladda aan yarayno oo waxay yidhahdaan bini aadamku mar kasta uu sii bataba way yidhaahdaan khayrkiisuna wuu sii bataa mashaakilkiisuna wuu bataa yani haddaad 100 qof maamusho oo hal qof oo rabshoolii ku jiro waxaa odhanaysaa kaain isuga dul qaadano war waa hebel iska daaya wala hebel iska wadaan waa hal qof laakiin markay 1000 gaadhaan maxay noqonayaan dee 10 bay soo baxayaan 1 milyan markay gaadhaan misay noqonayaan 1000 qof oo rabshoolaa baa jooga 1000 qof oo rabshoolaa si xalkooda loo helaya waa ina yareeya bay ku celiyaan milyan war 500 naga dhiga 500 hadday mushkiladda xaliil ka weydo ina sii yareeya waa nidaamka aynu ku wadno oo imika soomaaliya oo kale mushkiladii soomaalinimadii xaliil kari weyna ina yareeya xaliil kari weyna ina goboleeya gobolkii xaliil kari weyna waa ina sii yareeya ilaa tuulo sii tagto ama meel yar sii tagto idan waxaad dareemaysaa oo qofkaas u arkaa xalku inuu yahay marka la yaraada mushkiladdu sii yaraanaysaa waxaa lamida urur kastoo soomaaliya leedahay jaaliyada yar baa la furaya waa la murmaya waa la kala qaybsanaya waa markay dadka fiican yihiin hadda kuwa hore way istilkii waa isku maranada oo nin ha u hadho kuwani kuwaasa yaran dhamaane waxay leeyihiin mushkiladdu ha yaraatee inoo qaybiya dabeetana wax kasta oo la isku qabto qolada fiican waxay leedahay war meesha intan aan uga tagno in kala samaysano masaajidka baan uga tagno masaajidka la samaysano ururka aan uga tagno ururka la samaysano wayna yareeyadii uun iyo xal laga dhigay ama urur ku isticmaal ama masaajid ku isticmaal ama waddan ku isticmaal ama xisbi ku waxa doonta ku isticmaal waa solution ina yareeya waxay dhahdaan ummadu markay horu maraan garaadku uu kordho experience dadku yeeshaan xalkaa ka gedisan bay qaataan waa xalka ilaahay sharciga ku soo dejiyey aadanuhuna isagoo ambiyadii ka dhambashay ama ka soo gaadhay tajaaribtiisana uu ku daray oo bini aadamka oo dhami ku dhaqmo xalkaasi qolyahan dhigaa reconciliation sida dib loogu heshiiyo waa waxa ay dhigaan waa systemska dowladuhu u dhisan yihiin xalkaasi waa 3 qodob miduun ay bini aadamku ku heshiiyaan 3 qodob miduun bay ku heshiiyaan in la iscafiyo macnaheedu waxa weeyaan dadka badh inuu xaqiisa ka tanaasulo forgiveness inay cida aqbasho xuquuqdeeda inay ka tanaasuso si loo wada noolaado si jiritaanku uu jiro markuu arrinku yahay waar ina kala dareeriya cid ay tidhaaha maya tiinaynu ku wadaynaaye bal tijaabiya tiinaydu kula markaa cid baa xuquuqdeedii ka tanaasushay ka labaad waxay yidhaahdaan waa almusaalaxa mufaawada iyo gorgortan iyo compromise la sameeyo ka saddexaad waxay yidhahdaan almuxaakama waa in la garamo saddexdaa dariiq waxay yidhahdaan bashariyadu
can ariiqi tajriba waa saddexda ay u dhaqanto sharciga islaamigana waa saddexda ina farayo ilahay wuxuu inoo sheegay isqabqabsiga iyo kala tagu inaanu xalahayn walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilaha yidhi walaa tanaazacuu waana isqabanina baa la yidhi oo hadday isqabadkaa xal u weydaan maxaa dhacaya fatafshaluu watadhaba riixukum ilahay wuxuu inoo sheegay natiijada ka dhalanaysa waxay tahay fashalka af carabigu waxaa lagu yidhaha waa dacfiga waa liidanaysaan maanta soomaaliyadoo dal ahaan jirtay ayaa haadiya waraabuu ka dhargeen waayo way daciiftay marka iyadu muruqiyo goysay ayay noqotay cid waliba waxay doonto ka dhex samayn karto waa dacfi soomaaliya o dhan ma caalam islaam o dhan caalam islaam oo dhan waddan kasta soo qabo dhexdiisu baaba la isku dilaya dad baa ka dhigtay inay hubkooda ku tijaabsadaan caalam islaam wuxuu noqda marka iyagu murman baa hubabka adduunka lagu tijaabiyaa kadibna hubka warshadaha waxaa loo kala iibsadaa siduu u dagaal galay dabeetana xayasiiska qudhee loo sameeyo hubku waxa weeyaan practicalkuu galay iyo wuxuu laayay hubabka maanta warshadaha ugu badan ee dunida iibiyaan waxaa lagu xayaysiiyaa waa kii muusa lagu qabtay waa kii ciraaq lagu galay waa kii meelheblaayo lagu galay inta gantaale raday gantaalkaasi noocuu u dhacay siduu waxu laayay siduu waxu dumiyey eriyaduu fujiyey idan waxaynuu noqonay dhul experimentka lagu sameeyo soo maydaan arag dhakhaatiirtu fiiraankan yaree tajaaribta lagu sameeyo maxaa la yidhahaa jiirkan yaree wax lagu tijaabiyo yani dad iyo dal iyo dhul dhan baa wuxuu noqday boosas bini aadamku uu ku tijaabsado hubkiisa iyo wuxuu soo saaro ilahay markaa wuxuyna leeyahy war ha murmina oo haddaad murantaan waa daciifaysaan oo markaad daciiftaanna watadhaba riixukum ay dawlatukum muruqiin iyo xooggiin iyo dadnimadiinuba uu tegaya ilaa aynu magaceenu uu noqday erayada xumaha lagu tilmaamo soo ma ogdin afafka inaynu ku biirinay imanka afka carbeed haddii la yidhahda sawmalat alqadya waxay yidhahdaan arrinku wuu soomaaliyoobay weeyaan yani waa marka dhagaal isla galay la kala bixi waaye dadku si loo kala jiido la kala garan waayo kaysku hor iyo daba u yeelan waayo baa la yidhahdaa maxay way soomaaliyooday waa somalisation idan waxaynu example u noqonay xataa luqaadka cusub inuu magaceenu noqdo macne wax tilmaamaya soomaalinimo la sheego mafhuum dadku maskaxda markaaba ku qabanayo inuu jiro imka waxaa laga yaabaa tviyada iyo waxaa hadda soomaaliya wax la sheego talo magaaja laga warramayo mise caawimo mise wax la noocan weeya waa meel problem unbaa la sheegaya icon baynu u noqonay xumaha sidaa awgeed ilahi wuxuuna leeyahy fain tanaasactum fi shayin faxukmuhu ila allah marka hore waxaa la yidhi walaa tanaasacu wana isqabanina marka dambena waxaa layna yidhi bini aadamka dabeecadiisay ka mid tahay isqabadkuye fain tanaasactum fi shayin faxukmuhu ila allah baa la yidhi fain tanaasactum fi shay faruduuhu ila allahi wrasuul haddii aa wax isku qabataan alle iyo rasuul u celiya alle iyo rasuul waxay inoo tilmaameen saddexda qadiyadood aynu sheegayno oo ah qaabka bini aadamku uu kala baxo turuq halaatha diintuna saasay sheegaysaa tajaaribta bini aadamkuna saasay sheegaysaa innagu haddaba soomaali ahaan maxaa inaga xalkeenna ka dhigay un ima aliqtitaal aw alinqisaam maxaa inaga xalkeenna ka dhigay inaynu isdillo iyo inaynu kala jajabno labadaa midun inaynu xal u qaadano wax kastoo ina dhex mara wuxuu doonaba ha ahaado wadaadada ha noqdaan siyaasiyiinta ha noqdaan maalqabeennada ha noqdaan everything qadiyad kastoo soomaaliya isku qabato soo eegu shirkad yaroo soomaaliyeedoo soo kacdo ad arkaysaa dhaqaale yar samayso barun baad arkaysaa war maxaa dhacay waa kuwii labadii nina la ahaa isqabtayo waa kala socdeen waa la kala mudhay xoolihii wax kor socdaaba ma jiraan urur yar baa samaysmay barhaad arkaysaa waa la kala tegay koox wadaadaa isu tagto waa kala tagtay masaajid baa la sameeyo waa kala tegay maxaa wixii xalkeenna oo dhan maxaa ka dhigay inuu labada mid uu noqdo inaynu isdillo gacanta isula tagno oo cid la muquuniyo iyo
inaynu qaybsanno oo inqisaam yaraan xal ka dhigno labada midna xal maaha. haddaba ayuha alikhwa saddexda dariiqii xalka ah ayaan rabaa inaan midba wax yar ka tilmaamo. dariiqa koowaad ee cafwiga ah, forgiveness ah, ayda inay xuquuqdooda ka tanaasushaan. qur-aan iyo xadiis aada u badan baa kusoo arooray. waxay yidhahaan qur-aanka 40 aayadood in ka badan baa kusoo aroortay masalada. haddaynu siiradii nebi maxamed oo qura eegna calayhi salaatu wasalaam, intuu wax cafiye mashkilad qabsatay ma min mashkila isaga ku saabsan ilaa iyo dariiqu xalka uu maray waxa weeyaan cafin. waxaa la isku dayay in la ikhtiyaalo, gaadhmo lagu dilo. waxaa la isku dayay in badheedh loo dilo. waxaa la isku dayay in sul lagu dilo. waxaa la isku dayay in sixir lagu dilo. waxaa la isku dayay in la eriyo, waddankiisii laga saaro. wax kastoo qof bini aadama lala galo colaada waa lala galay. xadiista nebiguna saasay tilmaamtay. intabana nebigu mowqifku qaatay waa kii alla u tilmaamay, khudu lcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin baa ilahay nebi ku yidhi. cafwiga qaado, wanaaggana dadka far, wax magaratadu waxay kugu samaysana iska dhaaf baa la yidhi. acrid can iljaahiliin, wax magaratadu wixii ay samayso sidaa kula dhaqan baa la yidhi. sidaa daraaddeed waa la sumeeyey. markaasuu u yeedhay kuwii yuhuudeed ee sumeeyey. warwadan wax idin weydiiyo rumay sheegaysaan? haa bay idhaahdeen. su-aal u weydiiyey, been bay u sheegeen. su-aal kasta ay been u sheegaan, warmaaha waa saas idhaa way qirtaan. markii dambe wuxuu ku yidhi hilibkan ay siiseen sun ma ku darteen? haa bay idhaahdeen. maxaa u samayseen weli? nimanku yuhuuddu waa dad intelligent, waxay ku yidhaahdeen waxaanu is lahayn hadduu beenaalayeyna dee ha ku dhinto oo ha idin dhaafo. hadduu dee nebiyeyna ilaahayba waxyoon doono maxay dhiman maayo. dee hadduu nebi yahayna waa loo sheegi. hadduu beenaala yahayna dee ha cuno oo ha idin dhaafo baanu lahayn bay idhahdeen. ordooska taga ku yidhi ma ciqaabin, waxba uma geysan kuwii sugayay. isagoo geed hurdaan nin reer miyi u soo dhukusay waa u yimi. seeftii nebigu oo halkan sare saaran buu la baxay. wislado yaa iga kaa dhicin buu ku yidhi nebiga. nebigu wuxuu indhaa kala qaaday iyadoo seeftiisii lala dultaagayay. allah buu ugu jawaabay, ilahay baa kaa dhicinaya. ila ilahay baa qur-aanka u ballan qaaday wallahu yacsimuka min annaas. akhiiran ninkii seeftii waa ka dhacday, nebigaa qaata, iyaa iga kaa dhicin. ku seef qaata ka u fiican noqo buu yidhi. waa iska cafiyey nebigu. saxaabadiisii watuma wuxuu yidhi anigii ninkan qisadaasaana dhex martay, deetanu iska sii daayay. waxay isku dayeen inay dilaan maka markii uu ka hijroon doono. waa ka baxsado ilaahay baa ka saaray. nimankii sidaa kagama hadhina madiinay kaga daba tageen. intaasoo dagaal bay ku qaadeen, waxaasoo dhan kadib baa ilaahay uga guuleeyey. markuu maka soo galay buu isagoo 8 kun oo askari wata ayuu yihi maxaa maanta filaysaa? nimankii intay waddanka waxay doonaan ku sameeyey eriyey ayuu yihi maxaa iga filaysaa? waxay dhahay akhun kariim ibnu akhun kariim, nin tola un baanu filaynaa noo yimi inaad noqon doonto. iska taga buu yidhi, waxba laydinma haystee, laa tasriba calaykum alyawm, culays idinma saara, iska taga. idan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laaliya wixii mashkilad qabsaday cafwi ilaa xad. markii maka laga saaray uu daa'if tegay ee soo noqday la soo eriyay dhan walba ayaa ilaahay malaga buura usoo diray. waxa la yidhi maanta haddaad doonayso labadan buurood inta kor loo qaadaa reer maka dusha laga saaraya, adiga arrinkaaga ku xidhanta. wuxuu yihi maya, ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhabaradooda kuwa ilaahay caabuday alla ka soo saaro. yani kuwa kadeedaya ee eriyey ee uu hijroonaya ayuu cafiyey, haddana in buur dusha laga saara u diidayay. laakiin cafiskiisii badnaa wuxuu keensaday markuu ka xoog batay inay ta isu dhiibaan ay soo baxaan dadkii muslimiinta ahaa ee dunida maamulay ama se qabsaday. waa dariiqo wax loo xalilo. dariiqada labaad waa almusaalaxa. musaalaxadu waa masale ku salaysan bini aadamku inuu negotiation sameeyo. maanta dunida waxaa la isku haya inta ugu badan le wuxumaad maqlaysaa mufaawadaat, wadahadal dowladdan iyo dowladdan u socda, dadkan u socda. waa la is-afgaran waayayaa, dib baa la isugu noqonayaa. waa la is-afgaran waayayaa, qadiyaddaa dib loo noqonayaa.
waxa la isku afkartay yar baa laysla meel dhigaya barta kale dib inoogu dhagaa laleeyahy sanawaad baa la wadaya ilaa xal laga gaadho mufaawadaadku markaa waxay yidhaahdaan laba wax baa jira zero sum game bay yidhaahdaan waxay yidhahdaan oo ah qiso khayaaliyaa jirto ay leeyihiin oo kutubtooda ku qoran oo shamshuun nin ay yidhaahdaan waxay yidhahdeen ninbaa masixroole waxbuu ahaa adigu khaataa laga joogsaday xooggiisuna timuhuu ku jiray markaa markii dambe wuxuu yidhi bay yidhaahdeen naag bay u direen akhiiran adigu markii timaha laga xiiray markaa uu tamar beelay markii timaha laga xiiray bay yidhahdeen haddaba usbuuc kastana aanu xiiro indhahana way ka rideen kiniisad baa la keenay waxaa la yidhi sigoon halkaa xaadxaadho fiiq meeshii bu iska joogay waa qiso khayaaligayaba sheegaan markii dambe ayuunbaa timihii usoo baxeen oo la ilaabay bay yidhahdeen laakiin wuu indhala iyo dee wax ma arkayo maalintii markii la isugu yimi kiniisadii ayuu labadii tiiree dhexe kiniisadu qabtay bay yidhaahdeenoo deetana wuu dumiyey marka isna wuu dhintay wixii meesha ku jirayna waa ku dhinteen calaya waa calayhim bay yidhahdaan aniga iyo iyagaba aan isla jabno ana waxay dhaha bini aadamku mufaawadaadka ama aan isla jabnada dad baa qaata isku marhanno waa ka soomaaliyiinta badan qaadatay soomaali qabaa'il baa isdilay reeraa isdilay waxbaa isdilay maxaa natiijo ka soo baxay reer hebel wanagii dee kabaha la dul marray buu le haye maxaa hesheen markaa waxay ku leeyiin de iyagana 100 baanu ka dili annagana 10 baa naga dhintay 110 soomaaliyeed baa aakhira u dirteen maxaa soo kordhay yani kani muxuu helay wax dilay waxba ma helin waxa uu isugu faanaya waxa weeyaan waan kaa dhimasho yara adna waad iga dhimasho badnay yani xalka guusha la gaadhay meesha la sheegaya waxa weeyaan reer wal oo soomaaliyeed dhulkiisii buu degan yahay socaka maaha reer meeshiisii ka guuray miya maqashay inta badan masli cid waliba meesheedii bay joogtaa laakiin in lagna waa la laayay oo aakhira la qabadsiiyey idan waa calaya wa calayhim waa mahmaahahoodii bay ka mid tahay soomaalidu maxay ku mahmaahdaa cadkarow wale ama ku cunay ama ku ciideey yani hadduu isagu qaadan waayo waxa weeyaan waa inaan bini aadam kala dhadhamin waa inuu ciidda lagu daraa waa xalka ah waa zero sum game waa aan wax wada weyno ayuu ku faraxsan yihi dadka aakhira qabtaad adigu reerkiina u badnaa buu ku faraxsan yihi waa intaa intii aakhira qabatay reerkiina u badnaa waxay yidhahdaan bini aadamku xalka dhab tahay waxa weeyaan bay dhahan mufaawadaadka ku yimaada waa win solution bay yidhahdaan waa qofku inuu xalkan ka dareemo isna inuu guulaystay ka kalena inuu dareemo inuu guulaystay waa compromise waa inaad adna wax ka daadegtid anna aan maxay wax ka dhaadhaco meel dhexe oo labadeennaba ma ilwajhiin oo ilaalinaya inaynu isugu nimaadno anna aan is leeyahay wixii aan ku doodayay waxbaan xaqiijisay kan kalena uu is leeyahay maxay waxbuu xaqiijiyey waa win solution bay yidhahdaan idan qur-aanka ilaahay qadaayaadka bini aadamka dhex maroo dhan wuxuu inoo tilmaamay inuu xalkani xal saxayo lagu dayi karo unuga ugu yara bulshadu leedahay waa guriga unuga ugu yara bulshadu leedahay waa reer waa guri haddii ninka iyo gabadho isqabtaan maxaa xala ilahay wuxuu yihi falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr wauxdirat ilanfusu shux ilahay wuxuu leeyahy korkooda dhibi ma saara hadday musaalaxa sameeyaan wasulxu khayr baa ilahay yidhi war suluxaana khayrku ku jira ninka iyo gabadho inay isu tanaasulaan ayaa khayr ku jira hadduu ninku yidhahdo xuquuqdaan leeya o dhan waa inaan helaa gabadhona tira xuquuqdaan leeya o dhan waa inaan helaa inay wada noolaadaan way adagta laakiin hadday aqbalaan in laysu tanaasulo kan in xaqiisa wax ka tanaasuli karo qof kalena xaqiisa wax ka tanaasuli karo meel dhexan isugu iman karo u fiirso aayadda sulxiga waxaa la socda waa xudirat ilanfusu shuxa baa ilaahay yidhi nafta waxa lagu xaadiriyey bakhaylnimada waa kaygii waa xaqaygii baa lagu xaadiriyey idan waxaa layna dareensiinaya markaad sulxi u baxayso inaad deeqsinimadu kaa muuqato deeqsinimadu maaha waxbixintan xoolaa la bixiyo qura
وهنا حقوق ذاتي واحد كمدة لا حلو حقوق ذاتي يتكتنازل شيء وحقوق ذاتي واحد كمدة إن يتكتنازل شو سقيسك يرير كشريتان كيسو وجرو إلهي وحو القرآن هنا قلت المامي مركا قيسك dhibaatadiisa الصلح baa lagu xalilaa waxaa quraanku inoo tilmaamaya jamaacada mushkilada ka dhex timaada bulshada fattaqu llaha waslixuu daata baynikum ilaahay ka cabsada oo arrimaha dhexdiina islaax ka raadiyaalay wanaag ka raadiya waa saxaabadii dagaalka gashay waxoogaaga qaniimada isku qabatay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u tilmaamay hadday laba qof yihiin hadday laba jamaaco yihiin hadday laba kooxood yihiin inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum baa ilaahay tilmaamaya xataa alqadaaya asiyaasiya alkubra nabi maxamed muxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayn cadiimatayn min almuslimiin ina bni hada sayid buu nabigu yidhi wiilkaygaasi waa xasan oo yar waa sayid waa duq waa waayeel waa oday taliya waxaana la arkaa ilaahay laba kooxood oo muslimiin oo waaweyn inuu dhexdooda islaax ka yaray muslimiintu muddo isdilayeen qadiya siyaasiya bay isku hayeen isagaa khilaafada xaq u lahaa isagoo madaxweyne abuu aqbalay madaxweynenimada ummadda muslimiinta oo dhan intuu ka dhaadhaco si dhiigga muslimiintu uu badbaado ninkii kasoo horjeeda inuu siiyo isagoo ah kii xaqa lahaa ee muslimiintu ay baycada la galeen waayo mucaawiya marnaba ma ahayn amir marnaba khilaafa islaamiya ma haynin laakiin xasan baa hayay xasan wuxuu aqbalay mushkiladii la isku fahmi waayeyba si ay u yaraato awal dhiiggii cusmaana quru ahaa laakiin markay mushkiladii sii ballaaratay si ay uba yaraato bal adigu maamul oo dadka muslimiinta ah uun iftu ha ka yaraato idan qadiyad siyaasiya ha noqoto mid bulsho ah ha noqoto mid family iyo guri ha noqoto intaba qur-aanka iyo xadiidka waxay inoo tilmaamayaan sulxigu heshiisku inuu yahay wax bini aadamku qadaayaadkooda ku xalilo haddii labadaa la waayo maxaa xal ah haddaad adna xaqaaga ka tanaasuli weydo wax xafii weyda anaan wax xafii waayo haddaynu compromise samayn kari weyno oo intaynu wada hadallo aynu meel gaari kari weyno mal xal maan isdil laba markaa si aan weligeed iska laalaadno maya آخر طريق ولا جدية أو محي المحاكمة إلا إنك لا حكومة حكم كبير هذا وإن لك الدريرية دقك وإن بنادم كولي يسا سنان حكمكم ملزم بات كنت ينا تراعضو مركا حكم قعو حتى ولو حقا غير ودوسي ودعي كرتها إن لقاه افتح سناده إن لقاه بينا في عناده لكن وحويان وآخر المطاف مال دنبوه أبو سيكا عضو كلمة شرته وين كلا عنا وحين تأخذ بيا حقوق لا ضي آخرة هلي أما يدونك بنادم كسوة ونولان كرم نولان وشيره وهين المحكمة ضاي نغطاء محي وحاول ضنبيسيه dadku waxu kala tagaan si awgeed buu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam war waxa laga yaabaa in qadiyadii la timaadaan wala'alla ba'dukum alhanu min ba'd waxaana laga yaabaa barkiin barka kale inuu ka aftahasay oo aan dabeetana u xukumo ninkan wax u xukumo waxaad ogaataa buu nabigu yiri xaqaagii haddaan ahayn oo lagu xukumay inaan gobol naareed ku gooyay yani xukunku wax ma xalaaleeyo u fiirsada masalada xukunku wax ma xalaaleeyo هذا أنت الوداد سبتك تا كتابك أيدين بارانا إذا كلا حكومان أساد أكتهاي وحارنا العضية أظن مرخاتية لواية يكريات صدق ومرسي وعلماء الله حكمته يودي أنا يشك وجو حلالو مش لكن أدونك مركل الشجاع ضيق راعسة أصلا نسا أدونك مركل الشجاع ولا كلا بحر قرط ساسي كنا مات لكن حلالكم ما همرك آخر الإسلام تقول حرام عنباتي لكن ده دتك ولقي اسمه صرنانا يصبح يسريه وين تشرتها قد بني آدم كمرن كيس اللي جبين كمان إذا حكمك وحلا يلاحظه بني آدم هو مكو حسكون درصده وحقي كل ما إن مرمى وحيمان دونه هدي اللي بدأ الطريقة هو رأي إنه حلكو وإنه مححل إنه وصببت بني آدم كو حسكون درصده الدنيا ده كله وكاني إنه وحلا فرطه هذا ديستورتي
hadday acraaf tahay, hadday qawaaniin tahay, hadday waxan tahay, waxaa la qoraa iyadoo aan la ishaynin. laakiin maxaa loo qorayaa? waxaa la leeyahy waxaynu isku darnay haddii aynu ku heshiin weyno, waddan waliba waxaa lagu leeyahy dastoor buu leeyahy, oo dastoorkaa cidma khilaafi karto. okay, dastoorku muxuu sheegayaa? waxa weeyaan waa wixii ugu dambeeyey haddii aynu arrinkaysila meel dhigi kari weyno aynu ku kala baxaynay. maxkamad dastooriya jirto oo la leeyahay isagay sharaxdaay wax ku kala xukuntaa. waxaynu isku waafaqaynaa waxaa dastoorka inoo noqda waxaa kaloo dham inuu hoos maro. ilahay wuxuu qur-aanka ka leeyahay wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah. war wax kastoo a isku qabataan xukumkiisa allah leh ee u celiya. shareecada islaamigii markaa ama shaygu qur-aanka iyo sunnadu mansuuskaiyo ku qoran yihi, ama mustanbatu iyo laga soo istimbaaday, ama ogolaaday. masalada u fiirso, maalan heshiisyada bini aadamku uu qorto, any contract wuxuu doonaa ku saabsanaa, any contract, alcuhuud walmawaafiq baa la yidhahdaa, ballamada bini aadamku galiya heshiisyadooda u galaa. shardi un waxa ah inaanay ka hor imanaynin wixii qur-aanka iyo sunnada ku yaalay. kaasuma shardiga. wixii ka hooseeya aynu ku heshiino hadhow mulsam baad ku tahay diin ahaan inaad raacdo. u fiirso hadda, dowlad baynu dhisanay, wax ilaahay baa xukumay oo yidhi qodobka iyo qodobka saasaa laga yeelaya, saasaa laga yeelaya. wixii waxaa ka sokeeya waxbaynu kaga heshiinayno waxaasaa dastoor inoo noqonaya. i waxaa ka hooseeya waxa aynu dhiganay wuxuunbaa shardiga inaanu khilaafaynin maxay qur-aanka iyo sunnadu waxay sheegayeen. mulsam baad ku tahay inaad raacdo. shirkad baynu furannay, waxbaynu dhiganay, kaasoo qaad waxaynu dhiganay faa'iidada soo baxaysa 60% anaale, 40% adaale, maamulka ciddaasaa le, waxaa saas u soconaya, qaabkaas u soconaya. mar haddaanay diinta ka hor imanaynin mulsam baad ku tahay inaad raacdo. saajka yar baynu furan, lawaax yar baynu qoranay, sida guddigaasaa ka talinaysa, guddigaasaynu dooranay, 5 bay noqonayaan, 5taasi go-aankay soo gaadhaan. mulsam baad ku tahay inaad raacdo, hadhow inaad muranta maaha. wixii aada dhigatay waa inaad raacdaa, ee hadhow inay dhinac celiya weynaani jirin. marka hore aad wax dhiganayso ka fikir waxaad dhiganayso, ma yahay hadhow waxaynu ku kala bixi karno, waxaynu raaci karna ma yahay. ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud. ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud. waa kuwa iimaanka laga helayow, war waxaa ballan gashaa fuliya. waxaad contract gasho, dhaqanka qofka muslimka waxa weya gacantiisu waxma saxeexdo ilaa wuu aqbalaa, mar haddaanay diintiisa ka hor imanay. ilahay wuxuu leeyay awfuu bilcuquud. wixii aad contract gashay waa sidooda u fuli. nabiguna wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruutihim. dadka muslimiinta ahi waa calaa shuruutihim, waa waxay shardi ka dhigteen. laga yaaba soomaalidu inuu yidhaahdo war waraaqdan yar ay la ordayaan ma qur-aan baa ma ilaahay baa soo dejiyey, mid kaleba waynu qoranayno ugu kala kaxeen. maha saasi dhaqan muslim iyo dhaqanka bini aadamku doona maaha. waxaa marka horeba wax loo qorqoraya waxay ahayd markay mashkiladan oo kala timaado inay xal noqo. markaynu iswaafaqsannahay minagaa waraaqdaba u baahan. hadaynu iswaafaqsannahay waa is wada sacbatulaynaa, waa isdhinac ordaynaa, ma waraaq baynu u baahanay, wax walba soodiga u soconaya. waraaqdani waxay qiimo samaynaysaa, way macno leedahay marka murankeenu yimaado. marka murankeenu yimaadaba waxay tahay wixii aynu ku kala bixi lahayn. walidalik wuxuunbaa qofka muslimkaa saaran kow cidda garanaqaysa inaynu isku waafaqano. ilaa waraaqda nin waliba siduu doonaa buu sharaxanaya. cidda garanaqaysa waa inu isku waafaqnaa, oo inay laba midun ahaato. hadday dowlad tahay dee nidaam maxkamadeed bay dhisanaysaa, ama maxkamad dastooriyo cid baa la dhigo, dee ciddaa joogtabaa garanaqaysa. waxaa lagu odhanaya taga maxkamadda, qaanuunka baarlamaanku soo rogay baan ka ashtakoonaya, maxkamadda dastoorigaa tag baa lagu leeyahy. maxkamadda dastoorigii waxay awood u leedahay inaad tidhaahdo waxaasi dastoorku khilaafsan yahay, qaanuun maaha. ka madaxweynehay burin kartaa, ka baarlamaankay burin kartaa haddii uu dastoorka khilaafo. haddii kale qodobkaa dastooriga waa in marka hore laga soo dooda in la bedelo. suurtagal maaha in la khilaafi karo.
xaakimkaasina uu burin karaa wax kasta soo baxa hadduu khilaafsan yahay. shareecada islaamigana waa la mid. imaa inaad leedihin xaakim ama taxaakum inaad cid doorataan. cid doorashadu waa maxay? cidaa ku kalsoontahay saddexdaa qof aan diintooda iyo cadaaladoodaba ku kalsoonnahay ayaynu garta u dhiibanaynaa. war waxaasaa noo qoran, qaanuunkaygii waa kaanu meesha dhiganay, waxaasna waa isku haynaa, hanaloo garnaqo. waa laydin garnaqi. wixii lagu garnaqaad ku qasbanta inaad fuliso markaa. idan ayuha alxiba, ballamadu oo masaa'ilka dadku ay aadka u fudaydsadeen oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ballamadu fuliyey waa ballamo aad u adag bini aadamka ku adag. tusaale, sulxu xudaybiya heshiis buu gaalo la galay nebigu. heshiis ayuu gaalo la galay. heshiiska qodobadiisa ay markaas ku waafaqeen waxaa ka mid ahaa muslimiinta xagga gaalada joogtay soo baxsada hadday soo baxsadaan oo aanay iyagu soo fasixin in lagu celiyo, yani in dadka laysu celiyo. laakiin muslimka soo baxsaday xagga gaalada yimaada inaan la celin. u fiirsa hadda, sanadka kan inaanay cimraysanin, sanadka dambe in loo ogolaado inay cimraystaan, sanadka dambe markay cimraysanayaan inaanay hub la soo gelin, 3 maalmood oo qura inay magaalada maka joogaan, 10 sannadood inaan dagaal jirin. heshiis baa la galay. heshiiskii iyadoo la wado ayaa nin muslim oo silsilada ku xidhan oo soo baxsaday soo galay. ninkan muslimka ah waxaa dhalay odayga markaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam heshiiska la saxeexanaya. odaygaasi waa nin saxaabadii waaweynaa ka mid a, laakiin markan muslim ma aha. waa nin aada u aftahanana, aada u aftahana. odaygan nin baa haysato qoyskiisa 7 qof baa ka islaamay. walaaladii iyo kuwa u dhalay iyo waxaasiyo ciil horuu qabaa. kan yar markaa gurigu kusoo xidhay oo silsiladuu sudhay oo gurigii buu kaga yimi, kanina gurigii buu kasoo baxsaday. wuxuu yidhi waxa ugu horeeya aan kugula heshiinaya kanbaa ugu horeeya, haddaad kaa ku dabaqdana heshiiskan uu soconaya, haddii kalena nabi maxamed wuxuu ku yidhi anjise kan ii ogolow, kan ii sii daa, marnaba kuu sii dayn maayo buu yidhi. nabigu wuxuu ku yidhi saxaabigii sidaa u xidhxidhnaa isbir waxtasib, iska noqoo sabir oo ilaahay dartii u xisaabso. muu odhanin muslimka kan sidaa loo cadaabay baan celinaynaa. waar aqali maaha in muslimka heshiis buu galay. heshiiska ka muhiimsan heshiis buu galay nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka kan waxaa lamid a nin kala soo baxsaday abu qusayr la idhaahdo, madiinu yimi. 2 nin baa laga soo daba diray. nabiga u yimaadana waxaa la yidhi ninka kani wuu soo baxsaday, heshiiskeenu caynkaasuu ahaa, la soo celiyey. abu sayr buu nabigu u yeedhay, wuxuu kaale orada raac nimankan. abu sayr dee marka horeba wuxuu usoo baxsanayaa janno geshid soo maaha, oo nabi maxamed raac. dee nabi maxamed buu ku yidhi raac, ma meel war kala hadhay. dib uu isaga raaca. dhexda markii lasii socsocday oo nimankii isfahmeen oo laiska sheegaysto, waa niman gaaleed oo isku reeran yihiin. ayunbaa seefahoodii waxbaa la tilmaamo waa fiican tahay oo baltuso midunbu seeftii ka qaado, midba madaxa ka jaray, kii kalena uu cararay, waa soo eryaday. dee nin nafi wadabay hayde uu gaari waayey, magaalada ka soo horgalay. waxaa soo galay kii oo hiinraagaya iyo abu busayr oo seef sita. waa laga reebay. nabigu wuxuu yihi kani waa dab-ooge, kani waa dab-ooge. wuxuu gartay abu busayr markaa xataa hadday mar dambe qoladii timaada in la celin doono. magaaladu iskaga baxa, meel cidlaa buu iska tegey. meel cidlaa buu ka dhul jiifeeyey. markaa halkii safarka qureysheed uu shaam u mari jiray ayuu safarkii soo galee gaaladaaba. muslimiintii kale soo baxsataana madiinayla waa la celinayaana dhinacay ka maraan, xaggaasay tagaan. idan wuxuu ka baxay tiratarigii nebi maxamed xukumayay iyo dowladda islaamiga meesha ka jirtay. meel cidlo aan dowladda islaamiga shaqo ku lahayn ayuu ka dagaal galay. aakhirkii nimankii gaaleed baa u yimiyo waxay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo bandigaa waxaa noogolay in xeerka laga saaro oo wixii kuu yimaada
aanad soo celin kooxdaana ku darso oo yaan ugu soo noqonin ee magaalada halaga sidii baa lagu aqbalay abujandalkii beri hore la celiyey kooxdaasi xagga ku biirtay abu busayrintii aan waraaqda nebigu u iman buu dhintay laakiin ilaa 300 oo nin buu haysto meesha quraysh naftays ugu keenay dhowrkii boqol saasay ku yimaadeen magaalada madiina maxaan uga dan leeyay يعني بلن وقال لك علي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بسيدة وإلاليني أدو بلن كان مسلم قال لك شمي هذا الاليني بلن كان قال لك شمي هذا الاليني قف مسلم قهدوه هشيس صحيحه هشيس كاسيسان الدين تا كتاب السنة وكهر منيني ملزم بكوي أيها الأحبة مركب أرنتن وحانوت الماما يماها dhacdo halkan ka jirta ama halkan joogta ama dhadhow waxaan u tilmaamaya waa meel kasta qof Soomaaliya joogada dhacdo taagan waddankeena bay ka taagan tahay qurbaha oo dhan bay ka taagan tahay jaaliyadkeena ka taagan tahay wadaadadeena ka taagan tahay siyaasiyiinteena ka taagan tahay cid walba ma aha inaynu dadka ka xunnay kama xumin ma aha inaynu dadka ka mushkilad badannay bal ee waxaan bini aadamku wadaagin baynu wadaagnaa wadanadan iyo dalalkan iyo dadkan arkaysa qaar baan isku afahayn qaar baan isku dhaqanahayn qaar baan isku laakiin waxay yaqaaneen ilal aswa inaan loo guurin hal way doomadan Switzerland la yiraahdo kayn afar kala nooc lagu hadlaa diimaha iyaga daaba wadan dhan oo afar oo kala nooc lagu hadlayo Belgium saddex kala nooc lagu hadlaa Belgium sanad iyo dheeraadna dawladiba ka jirin inta xisaabtii isqabsatay oo la murmay ee dawladii dhacday sanad iyo dheeraad baan dawladi jirin haddana wax walba sidoodii bay u soconayeen lama odhanin waxa ma inaan doorar dawlad ma jirtaa kala yaacna lama odhanin ee muwaacidoodii hore si u soconaysay dawladda tasyiir u baska waday aan wax cusub soo fulin karin laakiin wixii hore wadanka uu yaalay uu ku dhaqan karaysa innaga maxaa ka dhigay haddaynu maanta muranno inaynu biri kala soocano maxaa xalkeena ka dhigay wax kasta inuu isugu nimaadno إما أنا علاقة دروكا حق بطو أما كدلو أما سكالة علاقة درو هي إما أنا كل هذا ينوك لجو حال كأني نقل هذا كان جاي سقاف بين وداقنا دين بين وداقنا نقب بين وداقنا مذهب بين وداقنا حتى الدين تينو مذهب كله وداقنا معناه يدو حويان بني آدم كواحد سكون هيه homogeneous group كده قردن بينو لنا هدنا واحد كستي بسكوهينا معناه ما هي إنه مكادتك كمشكلة بدني أما دبعت ده ودك كجرت دبعتوين كدنيا ده كجرت كبدن تهاي أما كعقليات ما هي ضد الصومالي يقف الصومالي يقف أهان وضد intelligent الغبر بايد هو يهود أفريقيا بايد هذا يعني وضد intelligent على قوة المامية وضد creativity له صار له مشكلة دود وحوي أنا قوم تقويا ومثلا نحن نذكر أقول توقف بدن الصومالي ده إلى ده ولا شيء ووحيبين يدروا الليمو يوروب لبضع ساعات وقام يشتغلين لكن مريكن كي أفريقيا وحوجا كشغية مريكن جوادوها وين يحول لك حياة دروا اللي بدأ وحوجا بالجوه هلا أفريقيا وحيبين ضد رب بدن شرعي ورقتنا الجويدين اللي وحيبين يسألك هلا وحيبين توحوجا بك هلا ندروا اللي ماضي إذا مشكلة ده هنا هي يوروب إنه حوجا سبين كانوا واحد فضلان ما ها كرياتيفيتي لان وده كرياتيفيتي له لكن waxa weeyaan waa xirfad bayna wadan labadii xirfadood aynu wadanayna tii darawalnimadaynu xoogaa ku cuncunaay marka taxi ka xayo bas ka xayo xoogaa ka xaxay walaba xirfadood oo qurayb naqaanay idan waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan qofka Soomaaliga ah ka bulsho ahaan ka jamaac ahaan waa dad creativity leh waa dad intelligent waa dad waxay ku kala gadisay inaanu jirin laakiin mushkiladeena waxa weeyaan aqoon darrada dhankan marka hor nimaado sideen mushkilad loo xallilaa baan aqoon jirin baadiyaheenii aqoona baa jirtay waa yeelka in laga dambeeyo bis ninka ama suldaanka ama caaqilka iyo geedka reerka u fadhiya wuxuu go'aamiyo reerku u ogola ama u samaata ama u qadhaadhaatee odaygiiba madaxa duubto caynkaa yidhi saasaa reerku yeelaya bis waa lagu kala tegi jiray idan markaa kala dambayn bay lahaayeen ninkaasi wuxuu u go'aamiyo duu yidhaahdo waxbaynu iska celinaa waa dagaalamayna waa dagaalami jiray duu yidhaahdo nabadaynu qaadanayna waa iska qaadan jiray hadda waxa weeyaan kala dambayntaasina way luntay therefore no solution meel kastoo aad tagto Soomaalidu inta yartay way is haysataa
inta ay yaryihiin ay istugsanayaan markay waxoogaa noqdaan ayuunbay reer hebel iyo reer aw hebel iyo belyabaasu kala baxayaan waxoogaa ayaa markay noqdaan yani waxa weeyaan dadku markuu soo tiro bato mashaakil ka soo bata khayrku ha soo bata lakin mashaakilkuna ula soo badanaya haddii aanay aqooni jirin markaa mashaakilka sidaynuu xallilaa ah dee waxa weeyaan uun wayna kala dareeriyeen wati markaa darsigeyga kani wuxuu ku kooban yahay isagoo inta ka faahfaahsan waa laga yaabaa ina internetka haddaa gashaa ku arki kartaa laakiin darsigeyga wuxuu ku kooban yahay war waxaynu u quusanaa ma taalo balaayo weyn o aynu xallili kari weynay oo aan loo xal haynina ma jirto ee waxaa jira oo qura duruqii bini aadamku wax u xallilan jiray ayaynan midnaba maraynin qoladeena waddanka inoo joogtaana inta ugu badan leh waxay ka bilaabeen xagga sare oo inagoon heshiis ahayn baynu rabnaa inay dowlad wada yeelano ay suurtagaltay dadaan heshiis ahayn inay dowlad wada yeeshaan marka dowladnimada la sheegay shirka la isugu yimaadee soomaaliya toosa la wada qaaday waa wada ilmeeyaan waa wada jiboodaan waayo reer waliba wuxuu rajaynayaa dee meeshuu rajo ka qabaa inuu wax ku yeesho ama qabsan karo ilan inagu ma kale xoog badnini laakiin marka qolo uun meesha qabsato inta kale taladooda waxa weeyaan 4 sanadood reer hebeliyey inugu dowladoobina cagahaya dabeetana zerogii waynu haddana isugu nimaadnaa 4taasi markay dhammaato ilan waa reer hebelo waxaad ka ilaalinaysaa magaca iyo sharafta iyo intale waayu kugu dowladoobina halkiisa ha fadhiyo hadanaasi maynu isugu wanaynaa kuwa waddanka jooga balgaajaaba haysa ama waxbaaba dhaqaaliya humuuriya kuwa dhulkan jooga maxaa haya berisku isuguma jiro nin waliba uu xoogsi tagaa kii xoogsan kari waayo dowlada meesha joogaa wax siinaya waa maxay waxaanaynu heshin kari laanay marka waxaanaynu danteenna u wada raadacaysan kari laanay waa maxay waxaan qabaa inay tahay waxa weeyaan adnaa mashkila markay dhacday inaan xallili karin saa daraaddeed inaan wax kula yeesho waxa ka horeeya waan aaminsanahay tuhma inaad ama ay dhacayso ama ay boobayso ama reer hebel hadday meesha yimaadaan markay meesha o dhan isku duubayaan inaga ilaaliya baa leeyahay marka horeba waa inaan sutida ku hayaa inaad marka waxaa kusoo koobaya dadna kama dhib badnin kama mashaakilkeenuna kama badna mashaakilka bini aadamka laakiin waxaynu u baahano in yar inaynu miyirka isticmaalno oo diin ahaan waxaa layna faray ama xataa bini aadamku tajaaribta uu ku helay inaynu ku kala baxno markaaynu isqabanno intaynu wada socon karaynana waa wada soconaynaa markaaynu isqabannana waa fududahay sida xal loo gaadhayay inaynu aqballo qaabka bini aadamku u kala baxay